Assalaamu calaykum. Waa ina salaamay walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka joogtiin. waa anigoo Sagal YouTube channelka anaga daawanaysiina waa Sagal Cabdi. soo dhawaada asxaabta qaaliga. waa ina salaamaya ilaahay ha ina sharfo dhammaantiina meel kastoo adduunka joogtiin. walaalahayga qaaliga waxaan rabaa inaa isoo dhaweysiin channelka aad subscribe saartiin gambaleelka afurtiin si aad fiidiyoyaashanada u heshiin. waxaan rabaa inaa like ay saartiin fiidiyooga. waa mahadsantihiin dhammaantiin walaalahayga sharafta leh. channelkan waxa aad ka heli kartiin waxyaabo badan oon soo gelin doono insha allah haddii ilaahay idmo, sida isqurxinta, sheekooyinka, la talinta, waxyaabahaas oo dhan insha allah haddii ilaahay idmo, fikirada, waxyaabo badan insha allah baan soo gelin doonaa haddii ilaahay idmo. waa arki doontiin waxa aan soo geliyo. marka waxaan iga rabaa inaa isoo dhaweysiin qaaliga. maanta waxaa inii hayaa sheekadii ugu horeysa aan youtube-kayga soo gasho. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin. kuna soo dhawaada sheekada. waana mahadsantihiin insha allah. sheekadan bilaabi doonaa haddii ilaahay idmo. sheekada waxay ku saabsan tahay laba nin oo saaxiibo ahaan jirtay, waxaana la kala dhihi jiray Bakayl iyo Aamiin. labada nin waxay ahaayeen saaxiibo, waxay ahaayeen niman oo lacag leh oo isla soo ganacsan jiray weligooda. marka waxay ku tashteen in ay u safraan meel aada uga fog meesha ay degan yihiin oo ay wax ku ganacsan jireen. meesha ay u safreen waxa u dhaxayso bad weyn. badweynta waxay markay safreen doon ay sii raaceen. markay doontii soo rarteen haddana markay soo rarteen doontii dhex bay la soo kula quustay calaashaan. dhex markay marayaana doontii quustay. doontii markay arkeen inay quusayso ay nimanka dabaala yaqaaneen soo dabaasheen. adiga intii ay markay soconayeen adii muddo 6 saac 5 saac camal ay waxay kusoo baxeen xeeb meel ah. xeebta markay kusoo baxeen ayay waxay arkeen meel oo tuulo ah oo adiga xoogaa jirto meesha, yacni xeebta xoogaa u jirto. markay meesha arkeen tuuladii ay arkeen bay aadeen. markaas tuuladii markay tageen tuulada ma yaqaanaan. waxay sameeyeen tuuladii ka tuugsadeen. tuugsiyay bilaabeen inay tuuladii ka tuugsadaan. maalinkii say u tuugsanayeen marka intaas tuugsanaya waxay arkeen meel oo maaragtay xoogaa geed weyn oo isdheen meeshaan waa meel aad seexan kartiin. geedkaas tuugsadeen waxay ku seexdeen. waxay ku tashteen inay wixii ay soo helaan ay qaybsadaan. midba maalinkiisa uu geeska magaalada uu u doono, midna geeska kaleeto uu u doono israaqad iyo wixii ilaahay kasoo siiya meeshaas. sidaas u ahaayeen adiga muddo markay sidaas ahaayeen bay maalinka dambeeta waxay ku tashteen inay biyo ceel ka cabaan. markaas ceelkii markay biyaha ka cabaayeen bay wax ay xarig oo ceel ku galaan maahane wax kala dhan way waayeen. waxay sameeyeen xarigii waxay dhaheen warheed Aamiin wuxuu dhahay Aamiinow Bakaylow anaa ceelka galaaye ceelka inaan midba mar gala maahee si kale ma lahan oo si kaleeto biyo ma u cabi karno. marka ceelkii waxaa galay marka hore Bakayl markuu galay wuu kasoo cabay. markuu kasoo baxay buu Aamiin markiisa galay. Aamiin ceelka wuu kasoo cabay. markuu ka cabay uu dhahay bixi. markaas wuxuu dhahay kuma bixinaayo israaqada aa magaalada geeskeeda kasoo heshid iyo tii aan geeska kale kasoo helo labadaba anaa isku qaadanayo. marka ka bax dhexdeena aniga wixii maaragtay israaqada iyo aniga magaalada nama qaada camal. marka sidii ceelka buu ugu daayay. Aamiinkii uu iskaga jiray ceelkiisa. sidii ugu jiray habeenkii markii la gaaray wuxuu maqlay jiniyaal oo ku sheekeysanaya ceelka korkiisa. jiniyaasha waxay islahaayeen insiga haddii ay ogaan lahaayeen boqorka gabadhiisa geedkaas oo sidaas geedka geed hebel
yacni haddii ay ogaan lahaayeen geedkaas in indhaha gabadha inta laga marsho oo ay u fiicnaanayaan bini aadanka mar horey sameyn lahaayeen. markaas yidhi war midda aniga ogaha kaa dalan mid kale intuu soo booday wuxuu yidhi aniga middaan ogahay waxay tahay mid oo yacni sorry karaali ahaada xoogaa maaragti ereyada hadalka maaragti xoogaa waan isdaba marinaya raalli noqo walaalahayga. marka wuxuu yidhi aniga taan ogahaa ka daran oo waxay tahay meesha maaragtay meel sidaas oo calaamadaas loo halkaas ah ayaga siday marka isla yaqaaneen meeshaas hadday ogaan lahaayeen insiga inay ku jiraan ceyl biyada oo wadanka dhan deeqo bini aadanka insiga wayla soo bixi lahaayeen. markaas midaan aniga ogahaa kaa daran mid kale inta soo booday wuxuu dhahay buurtaas oo saas halkaas ku taasho agteeda meel xoogaa ka sokayso marka saas loo faagfaago waxa ku yaalo loo qodqodo calaashaan ciid saas looga fadbado dahab iyo macdan oo fara badana laga helayaa meeshaas markii la qodo. insiga hadday ogaan lahaayeen way qodan lahaayeen. markaas jinyaasi meeshaas intaasay ku sheekaysteen iyo waxyaabahoodii kaleto maba aysa quseen asaga waxaas. marka way iska tageen jinyaashii markay iska tageen aamiinka meeshiisi isaga hoyday habeenkii. subixii waxaa u imaaday dadka oo reer miyiga oo ka cabaayo ceelka ka dhaansanayo xoolahooda ka waraabsanayo. marka ay u imaadeen bay waxay arkeen ninka ceelka ku jiro. ninkii ceelkii bay kasoo baxsheen. markay ninkii ceelka kasoo baxsheen oo tegay toos wuxuu u aaday caasimadda meesha boqorku joogo asagoo aan meel kala qabaneyn. markuu meesha boqorka aaday buu wuxuu u tegay boqorkii siduu sii socdo guriga boqorka tegay. wuxuu dhahaa boqorka waxaan u hayaa arrin hala ii keeyo. boqorka markuu layiri nin arrin ku hayaa joogo wuuba yeelayba. marka boqorkii uu u tegay markaas wuxuu yidhi boqorow gabadhaada indhaheeda haddaan u daaweeyo maxaad ii sameynaysaa. markaas wuxuu yidhi wax iyadana waan kuu guurinayaa boqortinimadeedana waan kugu wareejinayaa gabadheedan adduunka ugu jeclaha anigu. haye buu yidhi geedkii intuu tegay daf yirud geedka usoo mariyey. geedka markuu usoo marshay indhihii waa u fiicnaadeenba gabadhii wax kasta waaba aragtaa maasha allah. marka uu soo orday boqortinimadii lagu wareejiyey waa loo xanasho meel dhiijins waa loo caamad saaray. marka boqortinimadii adigu lagu wareejiyey. markii boqortinimadii lagu wareejiyey buu haddana wuxuu sameeyey wuxuu qoday meeshii dahabkii u qoday caadi u qodqoday isaga iyo asxaabtiisa yacni wuxuu ugu yeertay kuwii dadka u shaqeeyay laba nin boqor ah. markuu qoday meeshii wuxuu kasoo quftay dahabkii safriyay lacag badan uu kusoo gatay kusoo badashtay. wuxuu soo gaday qalabkoo lagu qodo ceelashoo loo qoday ceel baa loo qoday biyood yacni meel ceelka oo weyn oo biyaha ah ceelkan oo godka maahan ceel weyn oo carada dhan loo qodo montor yaa la dhahaa. markii ceelkii loo qoday buu meel kasta biyo saas wax yar marka loo faagfaagayba biyo oo maaragtay aan aada u dheereen biyo iska soo burqaday. ceelkii iyo dahabkii iyo gabadhiiba wixii dhan buu ugu sameeyey. asagoo intaas sameeyey oo nimcadii adduunka ku jiro baa waxaa soo agmaray soo tuugsi doontay guriga boqorka usoo tuugsi doontay bakayl oo tuugsanayo baa wuxuu arkay korbo wuxuu ka arkay aamiin ka gartay. markuu gartay buu yiri war ninkaas halkaas maraayo iisoo sii daaya oo loo soo sii daayay. markii loo soo sii daayay oo u imaaday buu wareeda soo adiga aamiinaha maahan suu yidhi haa. markaasuu yidhi war waa maxay tahay sidaan maxay tahay boqorka sidee ku noqotay. markaasuu yidhi wareede nimca ilaahay baan helaye boqorka waxaan ku noqday markaad ceelka igu riday igama adaa darinee sidaasaa igu dhacday oo jinyaashaasaa ii waramayo kan weeyo. wuu u sheegay wax kasto. markuu wax kasta u sheegay buu wuxuu ku dhahay sidaas baa haa waayahay xariifkii
wixii siin lahaa waa la siiyey, waa la soo dhaweeyey. La saaxiibkiisa hore u ahaayo ka xumaaday, wuxuu siin lahaa uu siiyeyoo uu macsalaamay. markuu ka tegay isaga meel kale mabuusa aadine, wuxuu aaday toos buu ceylku aaday, magaaladii buu ku laabtay. markaasuu ceylkii dalaq yiri. ceylka markuu galay buu aayar habeenkii jinniyaashii ugu imaadeen. habeenkii markay jinniyaashii ugu imaadeen, jinniyaashii oo sheekala soo fariistay meeshan say dheheen waryaa heedhe, war geed ceylkii waa la qoday. gabadhii kii kale soo booday wuxuu dhahay war gabadhiina indhihii waa loo mariyay geedkii, si wareer dahabka waa la fagta asna kii kaleeto oo jinniga ahaa. markay sidaas ay dheheen buurhaadhe maalinka habeenkii ceylka waxaa u malay inay insi ku jireen, bal hadda aan fiirino. waa la fiiriyey ceylkii, mise xariifkii aba dhex fadhiyo oo bakhiil ahaa. markaasay layiri gebigiisaba aan ku dilnaa ceylka. waa ku aaseenba ceylkii ku dileen dhagax iyo balaayi kala daareen. waa dileen, sidii ku dileen. markaasay ugu dhamaatay bakhiil. aamiinna waa isagu waa faa'iideyba, ilaan lilaahi buu ahaa. markii horena aamiin buu ahaayo nin wuxuu ahaa gacan furan oo wax bixiyo, kana bakhiil buu ahaayo intuu wax meel daran ka raadinayay buu way u dhamaatay. marka sheekadaas waxaan rajeynaya inaad ka heli doontiin, ka hesheen. marka walaalahayga qaaliga waxaan rajeynayaa inaad sheekada si fiican u fahanteen. marka sheekadan duluucdeeda waxaa waaye ama ujeedadeeda inaynaan saaxiibadeyna iyo dadkiina aadnaan la qadameynin. haddii ayna la qadameeyaanna aynaan la ficiltamin ood wanaaga u sheegtiin. marka waxaa la dhahay god siraad ha qodin, haddaad qodina ha dheereen, ku dhici doontida. marka waa ina salaamay asxaabteeda qaaliga dhammaantiina nabadgelyo.